lama waayin hargeysa injineero dhisa kuwii kaleba waxa dhisaya shirkadeena dhisaya injineeradeena dhisaya ma filin madaxweynuhu in uu shirkad kale oo meel kale laga leeyahay oo runtii dhiirigeliyo xogayaha dhalinyarada xisbiga mucaaradka Wiciid oo warbaahinta kula hadlaya xafiiska guud ee xisbiga Wiciid ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay shirkad dhawaan la siiyay qandaraaska suuqa Waaheen ee magaalada Hargeysa waxaanu dhaliilay guud ahaanba shirkadaasi oo ku tilmaamay inay tahay mid si sharci darro loo siiyay qandaraaskaasi. bismillaahir rahmaanir rahiim. ilaahay waxaan ugu mahadnaqaynaa nimcooyinkiisa faraha badan ee uu inagu manaystay raxmaadka inoo daaya iyo abaarihii uu ilaahay subxaanahu wa tacaala inaga soo jebiyey. waxaanu ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisanaynaa aynu ka baryaynaa inuu inaga soo qaboojiyo dagaalada iyo colaadaha ka jira qaybo ka mida dalkeenna jamhuuriyadda Somaliland. 9 August 2022 guddida qandaraasyada qaranka ee Somaliland ayaa waxay soo saareen short list ay ku bayaaminayeen amba ay ku shaacinayeen shirkadihii ka soo gudbay wareegii koowaad ee tartankii ay ugu tala galeen in loo galo dib u dhiska qaybta dawladda ee suuqa Waaheen. liistada ay soo saareen amba short listka ay ku soo saareen shirkadaha 8 ahaa waxaa ku jirtay shirkad kaliya markaan eegna shirkadaha dhismaha ee dalkeena ka jira inta kalena waxay ahaayeen shirkado ajaanib ah, shirkad China ah, shirkad Turkiya iyo shirkado Etoobiyaan ah. taasi waxay ahayd warbixintii koowaad amba liistadii koowaad ay soo saaraan guddida qandaraasyada qaranku waxaana ahayd 9 August 2022. 4 bishii shanaad 2023 waxay mar kale soo saareen oo iclaamiyeen shirkaddii ku guuleysatay qandaraaskii ay ugu tala galeen dib u dhiska suuqa Waaheen qaybta dawladda amba block E taasoo ay ummadda la wadaagtay guddidaasi shirkad Inyatsi la yiraahdo Inyatsi Construction Company oo maqalkeedu ku cusbaa ummadda reer Somaliland iyo reer Hargeysa. shirkadaas oo ku jirin liiskii hore ee ay guddida qandaraasyada qaranku ay baahiyeen ayay 4 bishii shanaad 2023 mar kale ummadda ay la wadaageen. waa laba warbixinood oo runtii aad u kala duwan. waa ta koowaad 8 shirkadood oo ay soo saareen 8 shirkadood shirkad kaliya taa kaga jirtay shirkadaha dalka ka jira. warbixinta labaad ay soo saareen 4 bishana shirkad aan ku jirin liistadii hore ee ay soo daayeen ayay inoo sheegeen in ay ku guuleysatay. haddaba waxaan doonayaa ummadda bal in aynu isla fahanno oo aan la wadaagno shirkadda qandaraaska ay yidhaahdeen way ku guuleysatay warbixinteeda oo kooban iyo qof kasta oo muwaadin ah oo reer Hargeysa amba reer Somaliland halka uu ka heli karayo warbixinteeda oo dheeraada haddii uu u baahdo. waa arrin cajiiba laakiin Somaliland tii caadi ka ah. Somaliland waa arrin caadi ka ah laakiin qalbiga iyo maskaxda fayow iyo hogaaminta suubanba waa arrin qariib ku noqonaya. shirkadaas waa shirkad bayskeedu amba deganaanshaheeda rasmiga uu yahay waddan ku yaala South Africa amba wadamada koonfurta Africa ku yaala. waddankaasi magac hore u lahaan jiray Swaziland baa la odhan jiray laakiin 2018 baa magacan Eswatini loo bixiyey. waa waddan yar oo landlocked ah oo boqortooyooyin iyo wax noocaas ay ka taliyaan. shirkadaasi halkaas ku taala waa shirkad construction company ah laakiin group of companies ku jirta. laakiin tii marka aad profile-keeda iyo waxa adduunyada ay ka shaqaysay ay ka yiraahdeen dib u akhrido dhaliilo aad u fara badan runtii ay dul hoganayaan. waa shirkad
accusationka laga sheegayaa uu yahay waxyaabaha ugu liita ee shirkad ay ka shaqayso ummaddana waxaan la wadaagayaa 3-4 qodob oo ka mid ah dhaliilaha loo soo jeediyey mashaariicda hore ee shirkadaasi ay qabatay amba dalkeeda ha ka qabato amba wadamada kale ee Afrika runtii ha ka qabato waa dhaliilo markaad runtii aad hoos ugu daadegto aad ku qiimayso shirkadda inaad wax u diratay iska daayay xataa aanad muxuu ahaayey ku aaminteen shaqo ay si personal kugu qabato shirkaddan waa marka koowaad shaqadeeda waxaa lagu dhaliilaa oo la sheegaa inay tahay shirkad quality-geedu uu aad hooseeyo marka ay wax qabanayso tusaalayaal baa jira marka xagga quality-ga shirkaddaasi waxyaabaha ay qabato laga sheekaynayo waxaa ka mid ah tusaale ahaan oo kale cusbitaalka ku yaala waddanka ay ka tirsan tahay Swatini Hospital markii kambanigaasi uu dhisay dhaliilihii iyo dhaleecayntii ku timid runtii waxay ahayd marka dhismo laga hadlayo waxa ugu foosha xun dildilaac fara badan baa ku yimi ruufkii oo markiiba damage uu soo gaadhay baa ku yimi electricity iyo balambalkii dhismaha galay oo dayac fara badan runtii ku yimid ayaa markiiba ku yimi waa waddanka ay degan tahay cusbitaalkeedii shaqadii ay ka qabatay quality-geedii saasuu noqday waana wax riboodkeeda la helayo waxaa ka mid ah airportka Swatini Mail and Guardian baa ayaa refer garayn kartaan haddii aad u baahantiin waxa weeyaan quality buur ah ayay kambanigaasi u qabatay marka shirkad dhismo loo dirsanayana waxa ugu horeeya waxa weeyaan waa good quality amba quality-ga tayada shaygaasi ay qabanaysaa inuu yahay tayo runtii aad u wanaagsan marka kaasi oo qodobka koowaad waxyaabaha shirkadda lagu dhaliilo waana dhaliil aad runtii wuxuu marka dhismaha laga hadlayo qodobka labaad ee kambanigaas lagu dhaleecayay mashaariicdii ay qabatay waxa weeye in ay mashaariicda iyo projectska ay gacanta ku hayso oo ku yimaado delay fara badan amba habsaan xagga waqtiga taasina waa failure waa guuldarro waana waxyaabaha marka la qiimeynayo industry-ga construction marka lagu dhex jiro waa qodobada ugu muhiimsan haddii mashruucaasi shirkadda qabanaysa waqtigeeda ay ku dhamaan weydo waxa weeyaan dhibaato weyn ayay kambanigaas sumcadiisa u keentaa aaminaadeedana aad bay hoos ayay u yaraysaa qodobka labaadna waxa weeye qodobka saddexaadna waxa weeye runtii isaguna marka construction industry-ga lagu jiro isaguna qiimihiisa la waxa weeye xagga muxuu ahaayey itqaanka waxaan la yidhaahdo amba in shaqada sideedii loo fuliyo oo sagsaag fara badan runtii uu ka imaado marka laga hadlayo shirkad dhisme oo intaas oo acquisition loo soo jeediyey anigu garan maayo guddideena qandaraasyada qaranka iyo dowladdeena Somalilandba sababta runtii ay ku soo xusheen amba qodobada kale ee kuwan ka muhiimsan ee runtii ay ku soo doorteen intaa waxaan raacinayaa aan doonayaa inaynu fahamno ummaddeenu ay ogaato shirkad dhisme oo waddan kale kaaga imanaysa oo qandaraas dalkaaga gudihiisa aad ka siisay horta waxaad ogaanaysaa marka ugu horreysa in qandaraaska qiimaha ay ku qaadanaysaa qiime of cost ah uu yahay oo mar walba ka qaalisan kuwa localka ah taasna daweyn ognahay suuqa waaheen sida wax lagu keenay iyo sida runtii dhaqaalaheedu uu ku yimid maanta maalintii dhaqaale xaddiga intaa leeg meel kale lagu geyn lahaa runtii ma joogno waxaynu sidoo kale ogeyn naqshadii suuqa waaheen loo soo sameeyey South Sudan baa lagu soo sameeyey millions of dollars baa ayaa naqshadaasi loo sameeyo ku baxay ayaduna daliil bay ahayd laakiintii muxuu ahaayey haddana maanta waxaa laga dabageeyey in la yidhaahdo implementationkii iyo fulintii iyo dhismihii afartaa dabaqe suuqa blockee laga sameynayo shirkad ajaaniba oon la garanahayn xataa muxuu ahaayey la damaanad qaadi karahayn sida wax u fuli doonto in haddana maanta la yidhaa fulinteedina taasaa la siiyey waa runtii waa dhaliil aada u weyn oo ummad ahaan iyo dal ahaan iyo dowlad ahaanba ina haysta maamulkeenna iyo dowladnimadeenna runtii horaan u sheegay waxaad moodaa isla xisaabtanka inuu aada ina damqayo
oon la ogolayn in wax la iska weydiiyo waxa aynu gacanta ku hayno iyo waxaynu wadno iyo waxaynu doonaynaa wuxuu yahay. suuqa waaheen wuu gubtay, ummaddan ayaa ku noolay suuqa, dhaqaalaha lafdhabar weyn buu ahaa. ilaa iyo hadda ma garan karno, dowladdeennuna kama jawaabin suuqa waaheen waxyaabaha gubay. ribood keliyaata oo dowladnimadeenna ka soo baxay ma jiro, xafiis keliyaata oo dowladdeennu ay ka soo saartay muxuu ahaaye suuqii waaheen dhibaatadii ku dhacday iyo wixii gubay ee rasmiga ahaa ilaa iyo iminka ma jirto. waa dhaliilaha ugu waaweyn. dhiskeedii iyo naqshadeediina kolba africa, south sudan iyo south africa ayaa maalinba meel la geynayaa. garan mayno ujeeddada rasmiga ah ee ka dambaysa. hargeysa gudaheeda laguma samayn kari waayin naqshad oo intaasoo aqoon-yahan iyo intaasoo injineer baa jooga. shirkadaha hargeysa ka yaalla iyo somalilan may dhisi kari waayin. sacabka maxaa habeenkii loo tumaa haddii aanay xeeladi ku jirin? maxaa iswataani inoo keenay? maxaa shirkadda inyatsi inoo keenay oo dhaliilahaasi dul hoganayaan haddii aanay xeeladi ku jirin? maxaa kriteeriyada ay ku xusheen guddida qandaraasyada qaranku ay inoo hor keeni waayeen ee kuwan ka muhiimsan? maxaa sidii rasmiga ahayd ee ay u kala xuleen amba ay u kala saareen shirkadaha iyo shirkadda ay guddidu inoo soo hordhigi weyday amba ay ula wadaagi weyday ummadda reer hargeysa iyo reer somalilan? ma maanta ayaa ummadda laga dhaadhicinayaa amba loo sheegayaa in somalilan laga waayey shirkad dhisme oo qandaraaska noocaasa fulisa? aniga waxay la tahay lama waayin shirkad hargeysa ka dhista dhismo noocaasa, laakiin waxaa la waayey mas-uuliyiintii ummaddan daacadda u noqon lahayd. waxaa la waayey dadkan sida rasmiga ah ee wanaagsan ee suuban u hogaamin lahaa. ta la waayey waa taas, ee lama waayin shirkad suuqii waaheen iyo block e dib u dhista. waxaynu maragyo markhaati ka ahayn mashaariic hore oo ina soo maray oo ajaanib ku lug lahaayeen oo la garan waayey meel ay ku dambeeyeen. mashruucii xunba weyne waa laynoo sheegay ugu dambayntii nin siiriyaana gacanta ku hayay, meel allaaliya meelu ku dambeeyey waa la garan waayey. biriijka koridhoorka labadaa biriijee maalintii dhaweyd biyahaasi ay dhibaatada u geysteen wayn arkaynay. dowladdu waxay noo sheegtay inay monitoron ku lahayd. waa shirkado ajaaniba waxaasi, waana dhibaatooyinka shirkadaha ajaanibtu ay keenaan. isla xisaabtankooda iyo hadhow toolad dabagelkooda haddiiba shaqadii ay qabteen ay wax ku imaadaan runtii way adkaanaysaa. hadhowna de dowladdeennu waxaan filayaa inayna odhan doonto suuqa waaheen naqshadiisana suudaan baa lagu soo sameeyey, fulintiisana iswataani baa lagu sameeyey. markaa anagu monitorin baan lahayn. dhibaatooyinka badan ee shirkaddaasi ay geysan doontana runtii wax badan oo aan monitorin ahayn kuma lihin. waxaan ku soo gebagabeynayaa, waar maynaan waayin shirkadaheenna muxuu ahaaye muwaadiniinta ee cashuurta bixinaya, dalka dhaqaale soo gelinaya. maynaan waayin shirkadaheenna ka qayb qaadanaya dhaqaalaha iyo qaadhaanka muxuu ahaaye maalin walba dalka loo gurayo. suuqa waaheen shirkadaha dhismuhu waxbay ku darsadeen, laakiin shirkaddaasi waxba kumay darsan. shirkadaheenna dib ha loogu soo celiyo. waxaynu naqaanaa sida caadigaa dhismayaashu marka ay dhammaadaan had iyo jeeraale waxay u baahdaan in muddo lasii daba socdo. markaa cidda lagala xisaabtami karaya ee shaqooyinkaa ina wada qaban karaysaa waa shirkadaheenna. aqoonteedii bay leeyihiin, awooddeedii bay leeyihiin, waana dadkeennii cashuur bixiyaal weeyaan. sabab allaaliya sabab meel kale qarashaad fara badan loogu bixiyo anigu runtii garan maayo. waxaan ku soo gebagabeynayaa oon weydiinayaa su-aasha ugu dambaysa guddida qandaraasyada qaranka. walbar kriteeriyada aad u raacdeen in ay shirkaddaas ay kaga guulaysato shirkadihii kale ee la tartamay ee turkidu ku jireen, ee etoobiyaanku ku jiray, ee jiniisku ku jiray. bal kriteeriyada aad kaga xulateen ee kaga door bideen in aad ummadda la wadaagtaan ayaan su-aashaasna waxaan weydiinayaa guddida qandaraasyada qaranka. waxaan ku soo gebagabeynayaa, nabigu maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay inuu ilaahay jecel yahay qofku markuu camal qabanayo inuu camalkaa si itqaan ah uu sameeyo.
إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه وحنو باهنا هاي قف كستو مسؤولية أو هيو إنه سيد قانون سميه إلهي كعب صدو آخرة لو يدينيا حباشا لو يدينيا ومدي سن دبعتيسن إن شغله هو هي سد عدن ما قبته وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت حسبية معارضكم وإصلاح وسوتشيدين وإن أيدي السحان دولة أي سحدو waxaan runtii mar labaad iyo mar saddexaad u soo jeedinayaa guddida qandaraasada qaranka in ay bal arrinkaa dib ugu noqoto shirkadaasi intaasoo dhaliiloodba laga sheegayaa mashaariicdii adduunyada ka qabatay intaas laga sheegayaa umana baahnin intaa inteedu inay dadka masaakiinta wax ka gubteen ay ku dhacaan in dhismo xun loo dhiso inuu ka habsaamo in runtii laga musuq maasuqo intaa midna ugama baahnin in muxuu ahaayey arrinkaa dib loogu noqdo risoosyadii baa la helayaa mashaariicdii ugu dambeysay gacanta ku qabatay wixii dhaliil laga soo jeediyey baa la helayaa dhowr cisho ka hor bay Uganda isku haystay mashaariic ay ka fulisay oo district court ay soo ashkateenaysay markaa shirkadda dhaliisheedu mid qarsoon oo qarin karayso maaha marka intaa laga imaadana madaxweynuhu inuu dhiirigeliyo weeyaan shirkadaha dalka inuu dhiirigeliyo businesska waddanka ee taxpayerka kuwaasaa mudan in la dhiirigeliyo lagama waayin Somaliland iyo Hargeysa iyo guud ahaanba gobolladeena shirkad dhismaha block ee maaha mega structure maaha dhisme yacnihii laga samada laga samaynayo kama wanaagsan oo kama weyna dhismayaal fara badan oo dalka ku yaala oo ay fuliyeen shirkadaha waddanku kama weyna kamana qurux badna kamana wanaagsana marka annaga doodaydu waxa weeye sabab allaala iyo sabab shirkad South Africa inooga timaado oo halkaas ka fulisa dhismaha loo siiyaa maba taalaba mobilizationka shirkadaasi ay qaadan doonto inay qalabkeeda soo rarto inay shaqaalaheeda soo rarto intaas oo kaliya ta qarashka iyo adduunka ku baxaya koska ayay ku jirtaa marka runtii si qarashku inoogu marxo si loo dhiirigeliyo ganacsiyada dalkeena iyo shirkadaha waddankeena si hadhow toole haddii dhismaha ay wax ku imaadaan loo heli karayo shirkadii fulisay intaba waxa wanaagsan shirkadaha waddankeena ku yaala in muxuu ahaa mashruuca la siiyo ta kale ee muhiimkiina waxa weeye waxaan u baahannahay inaynu ogaano maxay ku heshay shirkadaasi qandaraaskan maxay ku heshay adduunka marka qandaraas la bixinayo waa in intaasoo la raaca criterias ma la raacaya criteriyada shirkadihii kale Turkiyada soo xayisiistay iyo kuwii Chinese-ka iyo kuwii waddankeena ay kaga qaadatay ee lagaga doorbiday ee kaga wanaagsanaatay lagaga fadilay waa inaynu ogaano weeyaan waa inay nala wadaagto dawladdu maxay shirkadani kaga mudan tahay shirkadaha kale waxa kale oo dhan marka laga imaado dawladda iyo madaxweynahana waxa saaran iminka suuqa waa heer maalintii uu gubtay qof kasta oo Soomaaliyeed uu ka qayb qaatay qaaraanka ummad loo yabahay si dadka dib u dhis loogu sameyn lahaa dadka shirkadaha leh dadka ugu badan bay haayeen qaaraanka runtii ka qayb qaatay bixiyay maanta waxay qaban karayeen haddii la yiraahdo qaban maysaan la idin maayo de waxa weeyaan dawladnimadeena ceeb ku tahay inaga ceeb inagu tahay lama waayeen Hargeysa injineero dhisa kuwii kaleba waxa dhisaya shirkadeena dhisaya injineeradeena dhisaya marka almuhim baytul qasiidku waxa weeyaan ma filin madaxweynuhu in uu shirkad kale oo meel kale laga leeyahay oo runtii dhiirigeliyo waxaan ka filayay shirkadaha waddankeena ku yaala in ay dhiirigelin u samayso dawladnimadeenu ay dhiirigelin u samayso lagula xisaabtamo lala joogo la eego runtii saasaan filayay ciddii u baahan shirkadda profilekeeda iyo dokumentka iyo waxa laga yidhi inay ogaataana maanta adduunyadu waa open weeye wax la qarin karayo iyo wax la dabooli karayo midna maaha aad yar baad muxuu ahaaye website-dadeedii galaysaa resource-yadii waad helaysaa inta qofka wax ka qortay waad helaysaa mashaariicda ku feelgarooday baad helaysaa horta maanta halka ay dhalinyaradu marayso in dhalinyaradii ay ahayd inay mustaqbalkooda ay ka fikiraan inay wax bartaan in yacnihii aragti noocaas ay la imaadaan maanta inay ayagoo qoloqolo iyo qabaa'il ah ay yidhaahdaan waanu shiraynaa halkaa wax gaadhsiiyo horta waa xukuumadda weeye waa tala xumida xukuumadda Somaliland ee madaxweynuhu ugu horreeyay maanta waxaad arkaysaa dhalinyaro ku fikiraysa ayagoo reeraayna shiraan awal lama arki jirin dawladdii daahir riyaalo ka soo bilow lama aqoon qabiil iyo qabyaalo toona maanta oo la marayo 2023 oo adduunyadu ay meel sare ku socoto in dhalinyarada qaabka u fikiraan
runtii waa nasiib darro weyn dee dhallinyarada iyo ummadduna way shiri karayaan dee wax iska caadiya danahooda way ka shiri karaan ta deegaankooda iyo horumarintooda iyo dowladnimadooda inay taageeraan way ka shiri karaan mushkilad ma laha dee warbaahintu baan aniga qudheedu kula socday laakiin tii aniga dhaliisha ugu weyn ee dowladda aan u hayaa waxa weeyaan maanta in ay dowladdu ku qasbayso dhallinyarada in ay qabaa'il iyo qoloqolo runtii ay u shiraan runtii dee xisbiga ucid anigu shakhsiyan ma ogi meel xisbiga ucid intuu isku yimid dee aan mas-uuliyiintiisa ay ku qaateen in shirkaa la taageero laakiin ti waa laga yaabaa dad xisbiga da ka midii inay ayagu go-aan ka qaateen waxaa keliyoon ogahan waxa weeyaan in aanu xisbiga ucid shirkaa dee dabadana ka wadin wax badanna aanu ka ogeyn xogaye ayaa waxa uu ka hadlay hadal dhowaan ka soo yeedhay gudoomiyaha xisbiga ucid injineer faysal cali waraabe oo ku sheegay in haddii ay wada hadlaan labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Somaliland uu isna ka degi doono magaalada Muqdisho maya faysal hadalkiisoo dhammaystiran haddaad wada dhegaysatay waxay dowladda xilligeedu u dhammaaday wada hadaladan waxa bilaabi karaya dowlad cusub oo la soo doortay baa bilaabi karaysa hadalka faysal marka la isku wada daro gudoomiyuhu sidaasuu ahaa waana runtiisa wada hadallada Soomaaliya ayadoo la isla ogoliyay xisbiyadu ay isla ogoliyeen markii hore baarlamaankana xisbiyada iyo xukuumadda wada socotaa keentay maantana dowlad la doortay oo mandatekeedu uu shaqaynayo ayba wada hadallada galaysa insha Allah ta'ala Cabdirasaaq Cumay MMTV Hargeysa National Electronics waa hoyga agabka elektrooniga National Electronics waa dooqa dadweynaha wixii faahfaahin dheeraad ah kala xiriir telefoonada shaashada ka muuqda